waalidow ma ogtahay korriinka carruurta iyo tarbiyadda aan siinayno ma aha science oo kale oo waxaa haddaad samayso waxaasaa soo baxaya sidaa uma shaqeeyo ee waxa weeyaan waa art waxaa loola jeedaa wax u baahan gacanta inaad kula jirto duruufahooda markay isbedelaan aad isla bedesho adoo mar walba ku xisaabtamaya meesha la joogo wakhtiga la marayo iyo ilmahan qaabka uu u korayo tusaale ilmaha agoonka ah qaabka loola hadlayo iyo duruufta ku jiro way ka duwan tahay ilmaha hooye aaba la jooga ilmaha wadamada muslimiinta ku koraya duruuftu ku jiro way ka duwan tahay ilmaha wadamadan gaalada ku koraya sidaa darteed diinteenu waxay ina siisay tilmaamo guud waxaa loo baahan yahay waalidku intuu tilmaamahaas qaato inuu ku dabaqo duruufta carruurta isaga oo wakhtiga lagu jira dabeecadaha carruurta iyo dhaqamada meelaha ay joogaan ku xisaabtamaya waxaa laga yaabaa ilmahani inuu anger issue qabo ulama dhaqmi kartid sida mid aan lahayn cadho fara badan anger issue waxaa laga yaabaa ilmahan in uu la nool yahay waalid abuserisa oo garaacaya oo u gacan qaadaya daaci markaa tahay marka qaabkaad ula hadlayso way ka duwanaanaysaa ilmaha ay korinayaan waalidiin koolkoolinaya waxaan rabaa inaan idhaahdo waalid korriinka iyo tarbiyadda carruurta aan siinayno waa arrin u baahan inaan baranno wakhtiga la marayo bay'adda ilmaha uu ku korayo iyo jiilka uu ku korayo tilmaamaha diintu ina siisayna aan ku dabaqno fadlan muuqaaladan saad u hesho booqo janaalka adiga lagugu sameeyey ee la yidhaha waalid legacy ee youtube channelka ah walaalaha muslimiinta ana la sheer garee oo subscribe dheh si aad u hesho muuqaaladan assalaamu calaykum